oo wuxuu muhiim u yahay wuxuu kuu kala saarayaa sixirka iyo saxiixa ahlu sixirka iyo ahlu tawxiidku kuu kala saarayaa qofka muslimka ah waxaa muhiim u ah marka ugu horeysa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa uu ku gaadhayo inuu aqoon u yeesho ka hor intaanu nolosha maadiga aqoon u yeelanin sababta oo ah inaad caqiidadaada iyo diintaada aada jaahil kaga sugnaataa waxay fududaynaysaa in si sahlah ay dhaawac u gaadhi karto caqiidadaadu jahliguna cudurdaar uma noqdo ruuxii inuu jahli baxo awood u heli kara arrintaa jaahil baan ka ahaa ilaahay hortiisa kaa saari mayso marka cudurdaarka jahligu ruuxii culimo la jooga ama ehelkeedii la jooga inuu ku andacoodo ku marmarsoodo masaladaa jaahil baan ka ahay shareecadu ka amsmici mayso fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka waxaynu caawa u ballansanayn inaan wax yar ka tilmaanno calaamadaha aada ku garan karto saaxirka axadkan aad doonaysa inaad daawo u raadsato oo inuu ku dabiibo aada rabto ma saaxir baa mise saaxir ma aha diintaadaa ku xidhan oo xalay baynu ka soo warrannay in saaxir loo tago ama caraaf loo tagoo la rumaysto inay diintaada dhaawacayso bal haddii aada beled culimadii joogto ay arrintaasi kaa suurtowdo in aada kufriba ku mutaysan karto arrintaa xalay baynu ka soo warrannay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa inooga digay ruux daalim ah inaad u hiiliso ama aada xaggiisa aada u xagliso waa masalo if iyo aakhiraba aada ku gubanayso saaxirkuna waa daalim duulimaad ku ah maalkii muslimiinta iyo caqiidadoodaba wax ka daalimsani ma jiro labada daaroodba uu kaa fasahaadinaya ilaahayna wuxuu ku ballan qaaday ruuxa u hiiliya saaxir iyo wixii la mida daalim ah inuu if iyo aakhiraba cadaab ku mutaysanayo wuxuuna ilaahay qur'aankiisa inagu yidhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar wamaa lakum min duuni illaahi min wliyaa uma laa tunsaruun intaasoo khasaaro ah ayaa lagala kulmaya haddaad saaxir iyo nin daalima aada garab ka saarto ha u hiilinina oo garabka ha saarina daalim baa ilaahayna soo yidhi wa iyaakum waxaan ka digaynaa haddii aan la idhaahdo an takuuna dahiiran lilmujrimiin inaad abidkaa u hiiliso mujrimiinta waxaynu kaga dayanaynaa nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam wacadkuu ilaahay la galay baa ahaa inaanu mujrim weligii garab saarin markuu nebiyullaahi muuse ilaahay ka warramayay qur'aankiisa wuxuu ilaahay ku yidhi nebiyullaahi muusa ayaa odhanaya calayhi salaatu wassalaam qaala rabbi bimaa ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin ilaahayow nicmadaad isiisay anigoo ka mahadnaqaya igu ogow abidkay inaanan u heelinin ruux aan ogahay inuu daalim yahay waxaa laynaga rabaa inaynaan daalim u heelinin ilaahay muuseba ilaahay wacadka ula galay inaanu daalim u heelinin saaxir wax ka daalimsanna ma jiro marka ararta haddaan ka soo hadho waxaan u gudagelayaa ubuucdii casharkeenna axadkan
loo dawo raadsanaya ilaahay baa dawo leh ilaahay baa shaafi ah inuu saaxir yahay calaamadaha lagu garto maxaa ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah haddii aad saaxir u tagto si aad u garato inuu saaxir yahay su-aalaha ugu badan ee ugu horeeya ku weydiinayo waxaa ka mid ah magaca hooyada magaca hooyadu ku weydiinaya wuxuu ku odhanaya magaca waad u sheegi hooyadaana magaceed baa ku xigta magaca hooyadaa lagu baadi doonayaa adarayska lagaala xidhiidhinayo jinka iyo shaydaanka iyagoo ku andacoonaya oo yidhaahda maxaa magaca hooyada laga rabaa waa magaca marka la tago la isugu abtirinaya bay yidhaahdaan aakhiro haddii la tago waa magaca la isugu abtirinayo arrinkaasina wax saxa maahan axaadiid aada u daciifa bay cuskadaan axaadiid saxiixa oo bukhaari iyo kayrkiiba ay wariyeenna way ka dul tallaabsadaan waa aakhiro ta laga hadlayaa axaadiidta saxiixa ah oo rasuulkeenna ka sugnaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a xadiidka macnihiisu uu ahaa maalinta qiyaamaha ruuxii ballanfuryada yiqiinay calaamad u abaa loo taagayaa markaasaa la odhanayaa haadihi hadratu fulaan binu fulaan fulaan binu fulaanah lama odhanayo waxaana sidaa soo wariyey imaamu albukhaari weliba wuu u baabaystay masaladaa maa yudcaa annaasu biaabaa'ihim horta aakhiro waxaa lagu abtirsadaa waa aabbayaalka laakiin hadda dee aakhire maba joogno adduunyadanna ilaahay wuxuu inagu faral yeelay ruuxa in aabbihii loogu abtiriyo xaaladda marka aynu ka wada hadlayno innaga iyo saaxirkuna waa adduunyaynu joognaa ilaahayna qur-aankiisa waa ka inagu faray udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allaahi axad haddaad u abtirinayso aabbihii ugu yeedh udcuuhum liaabaa'ihim marka waa khilaaf taam ah oo shareecada islaamka ka hor imanaysa masale kale way jirtaayo shayaadiintu isma guursadaan way saaxiibaan ilmaha ay kala dhalaanna dib odaygu uma soo fiiriyo marka shayaadiinta maradada ah oo malcuuniinta ahi abtirsiinba ma leh hadduu wax garanayo hooyadii unbuu garanayaa aabbihii ma yaqaan aabbihii garan maayo marka ibliis iyo abkiisa oo dhammu abtirsiin ma leh ay ku abtirsadaan oo aabbahood ay ku sheegaan aabbaba ma leh marka wuxuu rabaa ruuxan muslimka ah inuu abtirsiintiisa lumiyo oo uu sida shayaadiinta ugu abtiriyo sharci ahaana ma banaana ruux aabihii ahayn calaamadaha lagu yaqaano saaxir inuu magaca hooyada uu ka qaato marka waxa isweydiin le muxuu ka rabaa magaca hooyada ee kale wuxuu ka rabaa waxay yidhaahdaan marka magaca hooyada iyo magacaaga iyo ayaanta maxaanku idhahdaa uu ku qaabilay magaceeda iyo waxbuu isu geygeynayaa sidii abjadka inta xarafay ka kooban yihiin wuxuuna ku baadi doonayaa waxay yidhaahdaan burjigaagaa la raadinayaa magacan lagu raadinayaa marka buruujta ay raadiyaanna waa 4 magac bay u yaqaaniin mid waxay yidhaahdaan maa'i bay yidhaahdaan midna hawaa'i bay yidhaahdaan midna turaabi bay yidhaahdaan midna naabi bay yidhaahdaan 4taa burji bay ka ambaqaadaan 4taa burji midkaa tahay baa laguu fiirinayaa markaasaa burjiba burji buu ka baawarweyn yahay bay yidhaahdaan marka burjiyada qaar baa daciifa qaarna waa aad bay u xoog badan yihiin asmaadan lagaa qaaday magaca hooyada lagaa qaaday waxaa lagu baadi doonayaa burji waxay yidhaahdaan si falkan iyo sixirkan lagu samaynayo
uu u furmo oo u shaqeeyo. marka haddii aad aragto ruux aad ka doonayso baadidii caafimaadka, ilaahay baa loo raadsadaya, waxaad marka ugu horeysa ku garan doontaa haddii uu ruuxaasi ku weydiiyo magaca hooyada, markiiba waa inaad ogaataa ninkani inuu burji wax la yidhaah raadinayo oo uu sixiroole yahay. qodobka labaad, haddaad sixiroole maalan aad ku beeganto, waxyaalaha uu ku weydiinayo ee uu sixirkiisa u isticmaalayo waxaa ka mida, wuxuu ku odhanayaa wax raadkaaga iyo astaantaada iyo maxaanku idhaahdaa jidhkaaga xidhiidh la yeeshay ii keen. wax maro aanad maydhin maalan, ama ka mid ah, ama dirayska aad qaadato wax ka mid ah, ama cumaamadaada ama koofiyadaada ayuu mid ahaan dalbanaya. haddii uu kaa dalbado wax uun maadiyaadka aada isticmaasho, wuxuu rabaa inuu sixirka ku sameeyo. maadadan jirkaaga laga helay ama dhidid ha ahaato ama dheecaan ha ahaato ama wax kale ha ahaadee, taasaa la dabagelayaa, d n a deeda looga faa'iidaysanayaa in aad u nuglaato sixirka. ee hadduu ku weydiiyo ku yidhaahdo wax uun jidhkaaga aad maxaanku idhaha ku isticmaashay ii keen, ha ka yeelin, waa sixiroole. qodobka saddexaad eed ku fahmi kartaa waxa weeye alqiraa'atu gayru mafhuumatin bikalimaatin mustaghrabatin. wuxuu aqri'i doonaa erayo aan carabi ahayn oo macnahooda aanad garanaynin, oo ah u yeedhyeedhasho iyo gurmad dalab la gurmad dalbayo shaydaanka. erayo aan la fahmaynin haddii uu aqriyo, markiiba waa inaad dhiif yeelataa oo dareenkaagu kaca oo aad ogaataa in ninkani uu u yeedhanayo jin, guruubkiisii inuu ka dalbanayo gurmad. qodobka afraad, haddii ruuxa aad u tagtay uu kuu dhiibo waraaqo qorqoran oo waxaan la garanayn ku qoran yihiin, ama wax isweydweydaarsan ku qoran yihiin, ama waxyaalo murabbacaad oo afargeesyaal dhexda la kala jeexjeexo la kala googooyey, oo ama arqaam iyo nambarra ku qoran yihiin, ama xarfa ku qoran yihiin, iyo wax la eeday iyo wax la ashiya arme aan la garanayn haddaad ku aragto, waxaad ogaataa waxa ay qorqoreen waxaa la yidhaahdaa awfaaq baa la yidhaahdaa. waana terminolojiga iyo erey bixinta iyo itisaalka iyo xidhiidhka lala samaynayo ibliis si adiga lagugu soo xidho. hadduu ku yidhaah markaa qaado waraaqahan oo shido, ama waraaqahan haddii alla yidhaahdo barkimadaada hoos gasho, ama waraaqahan intaad biyo ku ridda cab, warqaddii eeg maxaa ku qoran. haddii waxaan la garanayn uu ku qoran yahay, iska ilaali, waa sixir. sixirkaasina hadduu jidhkaaga la xidhiidho, waxaa laga yaabaa wixii la rabay waxaan ahayna inay kugu yimaadaan, oo hadhow aad sababsato in aad uba dhimataba, ama aad waalataba, ama aad sariirta ku ururtaba. marka waraaqdan hadduu ku yidhaahdo sidaa u isticmaal, waxa ku qoranina ay yihiin waxaan la garanayn, warqadaha iska ilaali, warqadaha ha qaadanin. qodobka shanaad, waxaan lagu garan waayeynin saaxiroolayaasha jinka la shaqaysta inuu kaa dalbado in wax la gowraco. addabax wuxuu ku odhanayaa digaagad gowrac, ama diig ha la gowraco, ama neef adhiya ha la gowraco calaamadahaa leh, ilaa iyo awr la gaadhsiiyo waxbuu kuu dirayaa. waxaas gowrac oo dhiiggiisana ismari buu ku odhanayaa. haddii uu xaaladaha kuula yimaado, ha ka yeelin, waa sixiroole, halkaa kaga dhaqaaq. wuxuu wadana wax ku anfacaya ma aha. walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa.
waxa kaloo ka mid ah oo mararka qaarkood caamada uu kula dhiiradaa inuu yidhaahdo neefkaa gowrac laakiin laa tadkur biismi illaah markaad gowracayso magaca ilaahay ha soo qaadin magaca ilaahay ha ku xusin neefkaa markaad gowracayso waxa kaloo ka mid ah oo saaxirka aad ku garanaysaa masale aan xalay ka dhawaajinoo ah inuu warar adiga kugu saabsan uu kaaga warramo intaanad adigu u sheegin wax casharkii xalay bay ku jirtay inuu taariikh nololaadkaaga wax ka mida kaaga warramo adiga hortaa intaanad waxba u sheegin markiiba waxaad garanaysaa in qariinka ay wada shaqaystaan adigana indha sarcaad laguu dhigayo oo yuuxii bacduhum ilaa bacdin suhurfa alqowli quruura waxaa kaloo ka mida maalan haddii uu kaa dalbado maalan qof baa laga rabaa in uu daaweeyo qofkii ma joogo ama ruux baa la rabaa inuu madiideeyo qofkii ma joogo ama ruux baa la rabaa in la naanaabiyo markaa wuxuu ku odhanayaa inuun haddaad soo heli karto timihiisa wax ka mida ama ciddiyihiisa wax ka mida si uun haddaad u soo hesho ii keen haddii maadooyinkaa ad adag wax ka mida lagaa helo oo dabadeedna sixirkii ay yaqaaneen ay ku wakaakibaan oo ay ku xidhaan waxay u dhowdahay sixirkaasi inuu qofkii raadeeyo timaha iyo ciddiyahana waxay had iyo jeer u doorbidaan waa sixirka la aasayabaa yaala timaha iyo ciddiyaha loo isticmaalayo timaha iyo ciddiyaha si dhaqso ah ciiddu uma cunto intaa uu maadadii sixirka lagu akhriyey ay nooshahay oo aanay ciiddu cunin ta'hiirkii sixirku wuu jiri karaa tusaale ahaan nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh maadooyinkii lagu sixray waxaa ka mid ahaa timihiisa iyo garhfeedhii uu ku feedhanayey jab ka mid ah ayaa ay ka qaateen nimankii yahuudda ahaa ee sixirayay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa fiican ruuxa muslimka ihi inuu maadooyinkaa haddii alla yidhaahdo ay sixiroolayaashu baadi doonaan inuu asturo oo markuu iska guro ama uu isaguba aaso ama meel baydhsan oo aan la heli karayn inuu dhigto ama uu dhigo ku aaso ayaa u fiican lisalaamati nafsih waa haddii uu markaa uu bayr qabo ama uu shakisan yaho cidi ay daba joogto ma aha inaad mar walba aad feejignaato uuna waa lagu daba socda dabadeedna aad cudur qaado ku idhaahdaa cabsiya calaamadaha maalan saaxiroolayaasha calaamadahaas ayaa ka mida in uu inuu dalbado ruuxa sixirka loo samaynayo ama shisheeye ha ahaado oo qof kale ha ahaado ama qofkan doonaya waxaan in loo qabtaba ha ahaadee wuxuu kaa dalbanayaa ciddiyaha iyo timaha iyo waxaasu inta badan ay raadiyaan marka calaamadahu way badan yihiin laakiin inaha ugu muhiimsan maadaama waqtigu inagu gaaban yahay intaasaad ka xasuusan doontaa haddii aad calaamadaha aragtaan ruuxa ha la sii mucaamalin waxaa dhici karta ruuxaasi calaamadaha uu kaa qaatay inuu adiga kuu samaysto si aad kliyanti ugu noqoto macmiil ugu noqoto ama aad adigoo haddii alla yidhaahdo uu kuu qalin shubateeyo kuula wadaago tacabkaaga iyo maalkaaga oo aanad isaga marnaba ka tegin eed isagii ku wardido oo aad mar walba isagii inaad ag joogto aad jeclaysato oo uu isagu isku soo kaa xidho si uu kuu biishado oo adduun uu kaaga tabcado way sameeyaan inta fara badan cidda u tagta waxay ka dalbadaanba uma sameeyaane ruuxan u tegay bay doonaan inay isaga laftiisa biishadaanoo ay isku soo xidhaanoo ay si maxaanku idhaahdaa allaa shucuuriya maalka ay ula qaybsadaan marka hadduu ku yidhaahdo maadooyinkaa ii keen waa sixiroole ee ka fogow intaa markaan ka gudbo masalada kale ee muhimkii waxa weeye sixirkani waa wax jira waana wax qofka bini aadmiga ah suurtagal ay tahay in lagu dayi karo oo nebiyullaahi moxamed badda waa la sixray salawaatu ullahi wasalaamu calayh
waayahay marka haddaba haddii arrintii ay timaadaba oo ruuxii la sixro sixir kastoo ruuxa loo sameeyaa horta boqolkiiba boqol ma qabto oo ilaahay baaba inooga warramay inaanu sixiroole siduu rabay u guulaysan walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa horta qaacidadaa qaado oo damaanad rabbi baad haysataa inaanu sixirku boqolkiiba boqol sidii la rabay aanu qofka u qabanin oo haddii sixirkii kasta ee la sameeyaa sidii loogu talagalay uu u qabanaya insaanka adduunkaba waxaa ka talin lahaa sixiroolaha dunidana wuu baabi'in lahaa xaasidnimo darteed unbuu saaxir wax u sixraa ninbaa beri nala joogi jiray waqooyigaasoo dumarka aad iyo aada ugu tegi jiray boqollaa la odhan jiray boqolle waxay rabtaa in odaygeeda loo madiideeyo oo haddii alla yidhaahdo iyadoo lagu xidho oo haddii rabbiga xugmayo meel kale aanu tegin oo markay u tagto ayaa wax $100 ka yar haddii ay u dhiibto ayaa wuxuu odhan jiray $100 wax ka yar ilaahay ku kala dhiman mayno $100 wax ka yar ilaahay ku kala dhiman mayno marka isagu miftaaxiisa ugu horeeya kitaab furki waxay yiraahdaan waxa uu ku kitaab furi jiray $100 buu qaadan jiray waanu og yahay in ilaahay ay kala dhimanayaan marka 100 la oran jiray waxa uu soo sameeyay inta faraha badan dhib fara badan buu keeni jiray oo haween fara badan ayaa intay u tagaan ayaa sixirkii loogu soo tala galay ama ay timihiisii qaadatay ama ay dharkiisii wax kamida ay qaadatay ama sharabaadadiisii ay u geysay baa inta loogu soo sixray ayaa laga yaabaa inuu sixirku isku rogo oo ninkii halkay ka rabtay inuu jeclaado reerkiiba uu ka firdhado qiso aan in badan ka warramo oo aan ka sheekeeyo markaan meelahan oo kale aan ka warramayo qiso aad iyo aad u cibro badan weeyaan sidaa darteed baan ugu celceliyaa waa qiso burco ka dhacday bay ahayd in badanna waan markaan mawduucan ka hadlayo madiidada si aan ugu baraarujiyo hablaha muslimaadka ah inaanu sixroole waxba u soo sidin ama kaniisada aadaan ama sixroole kalaba ha u tagaane nin sixirka yaqaana oo dawarsada ayaa aroortii soo mari jiray gabadha dabadeedna waxay siin jirtay quraac fiican iyo shaah bay isugu dari jirtay sadaqa ilaahay dartii ah ayay siin jirtay muddo markay sidaa u xanaanaysay ayaa wuxuu ku yidhi gabadhayahay si fiican baad iila dhaqantay abaal badanna waad igu leedahay marka waxaan rabaa anna inaan kuu abaalgudo oo maxaad iigu abaalgudi miskiinka anigu aan quraacda siiyo dawarsanaya tahay cilmi baan aqaanaayo waxaan doonayaa inaan ninkaaga ku jeclaysiiyo si aanu naa kale kula guursan waana wax haweenka muslimaadka iyo dumar oo dhan ku dabeecaysan hinaasu miyaad kari kartaa inaad ninkayga igu xidho haa meel kale aadi maayo aroortii dambe ayaa warqad yaroo wax ku soo qorqoray oo soo duuduubay ayuu u keenay wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa warqadda barkimada hoosteeda geli way ka qaatay barkimada hoosteeda ayay gelisay habeenkiibuu soo hoyday ninkii wuu seexday barkimadiibuu ku seexday aroortii shaqadiiba uma kacayo waa hebel kacoo shaqata waan daalanaya iddaa unbuu leeyahay wuu hurdaa waa kacoo quraaco oo kici waaye inuu sariirtiiba ka kaco uu kari waaye bal ka caweysayso ma kici karo magnad baa haysta way fikirtay marka waxay garatay warqadan meesha ku jirta inay cilad wadato iyadu waxay ku tala gashay in dee alaab ku idhaahdaa shaxshaxay noqoto dabadeedna intay kicisay bay tiri waa balwadoo suuliga gal intuu suuliga ku maqnaabay warqaddii meeshii ka saartay way gubtay
ninkii wahabkii waa ka duulayoo naasideen ahaa goormo waa imise saacaddu oo waa maxaad ii kicin weyday oo sootaa maanta oo dhan ku kicinaya ma subxaana allah alcadiim ninkii sidiiba markaa ku shaqo tegay wakhti dambe ninkii kale ee sixiroolaha ana aroortii dambe iyo sidaa dhowr maalmood markuu quraacdii la siiyey ina quraacdii kamay goynin ayuu maalintii dambe warsado wuxuu yidhi bal ka waran soo arrintii sideen ugu talagalnay maaha markaasay tii waa sidaad ugu talagashay markaasaa wuxuu yidhi mid kaloo kasii fiican baan kuu keenaya mid kaloo ka fiican ayaan kuu keenaya ii keen bay tidhi geedo yaroo tuman oo sixir ku soo aqriyey buu u keenay dadna waxay ku yidhi shaaha aroortii ugu dar waad yaabi doontaa haya keen way ka qaaday aroortii dambe kii sixiroolaha quraacdiiba soo doontay geedkii bay ugu dartay isagii bay geedkii ugu dartay mar allaaliye markuu shaahiisaa u dhadhamiyey baatin iyo cidhib ololka u olan na maxaad i siisay na maxaad i siisay na maxaad i siisay waalibuu ku dhuftay aan miyir qab lahayn qayladii waa la yaabay dee waxaad noo dhiibtaanu ku siinay ninka iga siinat ninkii sidii buu ku waashay xaqiiqatan ninkii shaahii uu rabay inuu ninkeeda siiyo isagii buu isku rogay ma fahamtay marka waxa kan sixirka ahi waa wax imtixaan ah oo khalqiga lagu darsaday ibliiskuna uu rabo albaab uu ka galo inuu ka dhigto marka haddii uu yimaadaba sixir ilaahay haynaga badbaadiye oo aa og tihiin damaanad inaynu inagu haysanno ahlalislaam oo aynu ognahay saaxirku 100% inaanu guulaysan karaynin haddiiba ay dhacdo biqadar illaah laa qadar allah haddii ruuxii sixirkii haleelaba sababtuu u haleelayaana waxa weeye waa goldaloolo qofkaas sixirka loo sameeyey xaggiisa ka timi goldaloolo wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waa dacfi xaggiisa ka yimi ruuxa muslimkii intaanu sixirku imanin waxaa diintu bartay waxyaalo lagaga hortago oo qofka bini aadmiga ee muslimka ilna aanay haleelaynin jinna aanu ku soo dhacaynin sixirna aanu qabanayn waa qabla alisaaba intaanay balaayadu dhicin ka hortageeda waana masaa'il basiida weeye qofka muslimka ah ilaahay uu cinaayeynaya waa raxiim waxaa ka mid a markaad gurigaaga ka soo baxayso inaad weyse qab kaga soo baxdo maxay ku yeelaysaa waxay odhan jireen dadka saalixiintaahi alwuduu silaaxu lmu'min alwuduu silaaxu lmu'min weyse qabku waxa weeyaan waa hubka qofka mu'minkii isku badbaadiyey wey marka waxaan idinkula talinayaa cadow hoosiya cadow sareba waa leenahay oo waxaan sixirka samaynaya bini aadmi keliya mama noqdaan xataa qayb sixroolayaale bay leeyihiin oo ku diran bini aadmiga inay sixraan la'aatiyannahum min bayni aydiihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين دي آد hubkaaga wadato cadowga kugu soo dhici maayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam axadka muslimkii markuu gurigiisa ka soo baxo haddii uu yidhaahdo dhowrkan kelmadood waa saxiix bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila biاllah bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa biاllaah intaa hadduu gurigiisa kaga soo baxo waxaa loogu ballan qaadaa malag baa yeedha wuxuu odhanayaa qad wuqiita wa hudiita wa kufiita wuqiita wa hudiita
وكفيك وحمرك الرسول كان عليه الصلاة والسلام هدي شيطان ورموغه وإسكود يو إنو ورقفك مسلم كإلهي مغنقلي كيلا السعودية قارين كيساها مقلية إنو حجابين هاي الروح باهد لو حرين محاد كتري كرتا أحد لو قبل قاضي إلا حفظيو أولا هانونيو أولا إلالينيو حبكي ما تري كريس وح الله عليه واحد كتري كرتا مجرته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت اسمح لي يلي قضبك كلا مهم كأ قفك مسلم كأ ومجن إلهي نقونا يوحوي إنه الروح مسلم كرجل كأه مثلا إنه صلاة الصبح جماعة كتكذا صلاة الصبح هدو الروح مسلم كي جماعة كتكذا وصلاةها وجو أدق منافق لجو قرت سوما هدو صلاة كأد كادو أفرت صلاة وده كلنا وسهلنانيا وحو الرسول كان وجب الله قاضي صلوات الله والسلام عليه إنه الروح سأهان في ذمة الله من صلى جماعة يكون في ذمة الله إلهي مجنتيسا أي الروح أهانيا إلهي مجنتيسا يوصل نافكرة أحد نوصل نافكرة معي يمسك قضب بعد هيسا ولقوا بدباده قضب مهمة آد مهمة مر والبنا أن قلت لي أنت أنا جوايا أرجني ماذا يديو أقونت أنت عن باب كاف كشري قضب كاسوا صدقة قضب كاسوا صدقة قضب كاسوا صدقة هدي الروح كد داله إلهي بحفظه سبحانه وتعالى soomaaliduna aad bay u tijaabisay sadaqada oo magac aad iyo aad u qaaliya bay ula baxday oo waxay sadaqada u taqaanaa Soomaalidu dhawrto waa sadaqada af Soomaali ahaan dhawrto ayaa lagu yiraahdaa xoolaha marka la liso qayb kamida ayaa geedaha la sugri jiray si safarka meesha maraya ay hadii alla ka dhigo ay u cabaan haddii martii ay timaadana waa la kala boobi jiray Soomaalida hore iyagoo garanaya manfaacad iyo faa'iidada ku jirta sadaqada iyo ikraam dayfka marka waqti baynu ku jiraa aad iyo aad u fasahaad badan marka ruuxa muslimkii haddii uu ku dadaalo sadaqada wax badan kii hore qabtayna wuu buraya ka dambeeyana ilaahay baa ka ilaalinaya as-sadaqa tudfi'u ghadab ar-rahman الصدقة تطفئ غضب الرحمن صدقة وحي بختيسا إلهي عرديسا هدي عردي إلهي كابختدنا وحد كبد باديسا دنبقات سمايسي وحي كإما الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وحي أتشقيستي دنبقاها هدي إلهي كاميرو وحي نقونيسا إنانو ميل وكاسو قلو waysaduna waa idinka ogo mar allaali markaad weysaysato dunuubtii saqaa'irta ahayd oo dhan biyaha aad ku weysaysatay baa raacaya ka ruuxii hadii uu uu weysa qaatay oo dunuubtiisa saqaa'irta oo dhan ay baaba'day saaxirooluhu meel ka soo galo ma jirayso marka qodobka ugu horeeya ee la isku daaweeyo waxa weeyaan as-sadaqa qodobka loo muhiima baa isna jira قضب كاس وحويه الثقة بالله إن إلهي كلسوني كقبته وحانو قد شيدا قف كمسلم كأه أو دبانها دبتو هايستو ومستجاب الدعوة سيدا إلهي القرآن كيس وقبل لنقاضي وإلهي القرآن كيس وحو كويري أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء روحه هدو توس إلهي وحدمه إلهي وحو تعليها إن أدون كيسو بريو وحو إلهي الربا قفكا إن عرب كيسو آنو ذكري إلهي كقلل مركا إلهي كوافتي ذكري كيسا وحد أغانيسا إنو إلهي كتعليها إنو مركا آد كصوبيرتو ضدك إلهي تعليها والغو امتحاميا
imtixaankaas qofka muslimkii ku soo joogsadaa laakiin qofka aan muslimka ahayn imtixaamaadka kuma soo joogsado afalaa yarawna annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayni uma laa yatuubuuna walaa hum yadakkaruun inuu ruuxu ilaahay toos ugu xidhnaado imaam axmed binu xambal raxmat ullaahi calayhi wacala almuslimiina jamiican qiso aad iyo aad u layaab badan baa laga soo wariyaa isaga oo la jooga ardaydiisii ayaa haweenay qof dumara oo aad iyo aad u kurbaysan oo dhibban baa u timi sheekha dhib badan bay markaa sheekha uga cabatay iyadoo khayr badan ku filaysa markaasaa waxay ku tidhi iyadoo xertaysiina maqlayso sheekhow ilaahay ii bari sheekhow ilaahay ii bari markaasuu ku yidhi iska tagoo adiguba ilaahay kaama xige orodoo adiguba ilaahay bari way iskaga tagtay markay ka tagtay buu sheekhii ilaahay u baryey markaasay xertiisii ku tidhi sheekh waa adigii dayriyey oo iska eryey waa maxay ducadadaad ka dabageynaysaa marka wuxuu yidhi 3 faa'iido 3 jaanis baan eeganayey 3da jaanis waxa weeyaan ducaa ulghayb labada muslimiintii hadday qayb isugu duceeyaan waa ogtiina waa mustajaab waxa kaloon ka faa'iidaysanayey iyadaa mudar ah iyadaa dhibban iyadaa ilaahay jaanis iyo fursad siiyey inuu ducada ka aqbalayo xikmadda uu dhibtan ugu keenay ilaahay baa yaqaan inay addoon mutadarricada noqotaa laga rabaa marka iyadiiyo ilaahay baan isbarayey oo waxaan haystaa damaanad ilaahay uu siiyey inuu ducadeeda aqbalayo aayaddan u aqriyay marka aman yujiibu almudara idaa dacaa masale kalena waan uga jeedayoo qofkii waa qof caamay ah inaanay mar walba makhluuqaad uun tala saaranin mar walba inaanay xagga makhluuqaadka u soo ordin ay ilaahay isku xidho subxaanahu wa tacaala haddii aan caamada sidaa loo tarbiyaynin waxaa dhici doonta qisooyinkii soomaalida dhexdeeda ka dhacday mid ka mid a beri baa waxaa la yidhi qiso islaan baa waxay haysan jirtay xayn adhiya adhigiibaa habeenkii ka dib jiray dib jirka waa taqaanay soo maaha adhigii ma soo hoyan habeenkii uu dib jiray magaalada miyigeeda meesha ay degan tahayna wadaad baa jooga laga ducaysto wadaadkii bay ku soo corortay sheekh hebelow sheekh hebelow sheekh hebelow caawa xayntii yaraydaan lahaa way iga dib jirtee iigu nabaadiina xid markaasuu ku yidhi ilaahay baan baryi doonaaye iska tag waxay tidhi sheekhow ilaahay ha igu hallaynayna ii bari ii duce sheekhow ilaahay ha igu hallaynayna adigu ii ducee marka haddii caamada aan lagu tababarin in iyagiiyo ilaahay la ysku xidho si sahlan buu ibliis uu u marin habaabin karaa marka culimmadu waxay ku fiican in ruuxa lagu tababaro adigu isdawee adigu asbaabtii dawada la kaalay sadaqo la kaalay alla bari la kaalay ilaahay bari istikfaar la kaalay istakfiruu rabbakum innahu kaana gafaaran saad arki maysa marka waa in dadka caamada ah ilaahay lagu xidho subxaana wa tacaala oo la yidhaahdo ilaahay cid kaaga lexe jeclo badani ma jirto waanu ku ogyahay dhibta ku haysata isagaa kaashifa alkuruuba anna ducadaan kugu kaalin adiguna ilaahay toos u baryo fursaddan ka faa'iidayso marka ruuxa muslimka ahi hadday dhibi ku timaado inuu isagu ilaahay toos ula xidhiidho wey mid kalena ka feejignaada haddii aad wax dareento ay dhibaata kugu timaado wuxuu ilaahay kuugu gargaarayaa inaad u sabirto innamaa yuwaffa saabiruuna
أجرهم بغير حساب haddii uu yahay waxaan dhibaatada kugu hayaa cadow jin ah oo la soo diray shaqaa loo soo diray hawl baa loo soo diray shaqadaa loo soo diray ee loo soo igmaday haddii cabashadaadu ay badato wuxuu ogaanayaa shaqadiisii in si loogu talagalay ay u socoto oo idinka arkay si kale haddaan idiin fahamsiiyo caalamka markay laba dowladood dagaalamayaan ee dowladii intay madfac meel ku liishaanto ay bartilmaameedkii la hesho oo lagu hoogo oo lagu bo'o baa miidiyaha waxay gelinayaan madficii la soo riday islaan uur labaa ku dhimatay ama riyar baa ku dhimatay ama ilmo yar baa ku dhintay oo hadda meel lagu baaba'ay maxay ka wadaan inay mooral jabiyaan cadowgii soo riday madfaca marka madfac uu soo riday waxaa laga yaabaa $100,000 inuu ahaa ama $600,000 inuu ahaa oo gantaalaha masaafada dheer wax ka dilaa gantaalkii ay rideen habar baa ku dhimatay marka isagii baa dib u xisaabtamaya soo maa cadowgan la soo diray haddii ay cabashadaadu badato wuxuu dareemayaa shaqadii loo soo diray inay u socoto laakiin haddii aad afka xidhato istikfaartana badiso aadamahana aanad u cabanin aadamaha haddaad u cabato laba ruuxun bay noqonayaan ciddaad u cabadantaa midkood imaa inaad cadowgaagii u cabatay oo aad ka farxiso iyo imaa inaad nasteexaagii u cabatay oo isagoon waxba kuu qaban karayn aada warwariso kaa warwaro waxna kuuma qaban karo marka hadday labadaas kuu tahay inaad ilaahay aad barido haddaad ilaahay ka ashkatootood addoommaha aad uga ashkatooto waidaa shakawta ila bna aadama inamaa tashku raxiima ila aladii laa yarxamu haddaad bini aadmiga cabashadaadii aada u sheegato waxay ka dhigan tahay inaad ka ashkatoonayso ilaahay oo axad aan waxba kuu qaban karayn aada u ashkatoonayso marka adiga iyo ashkatadaadaa ilaahay isu daynayaa laakiin haddaad sabirto oo aada adkaysato shaydaankii hawsha loo soo diray wuu mooral jabayaa wuxuu leey qofkii maba cabanayo oo wixii aan ugu talagalay la ii soo diray meesha kamaba taagno wuxuu markaa go-aan qaadanayaa inuu meesha iskaga baxo markaad adiguna ilaahay isku xidho cabashadana aada joojiso waxaa dhacaysa inuu niyad jabo cadowgaagu marka waa la qarsadaa dhibaatada ku gaadha aadamaha looma sheego imaam maalik binu anas radia allahu tacaala can raxmat ullaahi calayh ilaa iyo 80 iyo dheeraad buu cimrigiisu gaadho waad ogtihiin imaamkii madiinuu ahaa aakhiru cimrigiisii jamaca lama soo tukan jirin aakhiru cimrigiisii jamaca masaajidka ma iman jirin tadriiskiina wuu joojiyey markii uu sii wafaadayey baa si aanay dadku si kale ugu fasirin ayaa dhibtii haysatee jamaca ka reebtay ayuu ka warramay wuxuu yidhi muddo intaa la-eg xanuunka salasulbowlka igu dhacay aniguna waxaan ka xishooday inaan masjidkii rasuulka inaan tago anigoo salasulbowl leh sidaa darteed baan cidna umuu sheegin wakhtigii uu dhimanayey ayuu sheegay si aanay dadku ugu fitnoobin oo aanay u odhanin imaam maalik basowka jamaca iskaga joogay aakhir cimrigiisii marka ruuxa muslimka ah waxaa laga rabaa inuu aada iyo aada iyo aad uu u adkaysto dhibaatada jinka kaga imanaysa oo haddii labada ruux ee isqaba uu rabo inuu kala firdhiyo inay iyagu nafta ay cadaadiyaanoo waxyaalaha uu shaydaanku amrayo ee cadhagelintaiyana inay difaac kala hortagaan oo wax allaaliya wuxuu u qurxiyana cagsigiisa ay sameeyaan laakiin hadday sii horboodaan wuxuu ogaanayaa shaqadii loo soo diray inay hirgashay isna kala hadhi maayo hortaas marka waa in qofka muslimka ahi haddii uu sixir haleelo ama uu ili ku dhacdo ama jin kaleba ay isku dhacaan inuu afkiisa haysto
hadduu ka maarmi waayo cidda uu isleeyahay wuxuun bay khibrad kugu kordhinaysaa inuu kaa u sheego dhibtaasaan dareemayaa sideen u maxalliya waayahay taasi waa talo qofka muslimka inuu guntado sadaqada hadday tahay sabirka hadday tahay inamaa yuwafa saabiruun hadday tahay weyse qabkaaga hadday tahay adkaarta aad guriga kaga soo baxayso taad ku noqonayso taad suuliga ku galisay taad kaga soo baxayso taad masaajidka ku galisay taad kaga soo baxayso xaaladahaas oo dhan adigay xisni kuu noqonayaan adigay difaac kuu noqonayaan haddii aad daakir noqoto addaakiriina allaha kaiira wadaakiraati aad ku biirto meel allaaliya meel uu kaa soo gelayaa ma jiro waxaanu ilaahay inooga warramay dadka dikrigooda iyo xuskooda ilaahay yar yahay in shayطaan lagu sidko wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin ninkii ka indhabeela ee iska indha tira dikriga ilaahay qalbigani faariq noqon maayo qalbigani waa in la mashquuliyaa imaa inaad ilaahay xuskiisa ku mashquulisaa imaa inaad jaanis aada siiso ibliis haddii aada ibliis jaanis siiso isagu fursadda ma lumiyo lacnat ullaahi calayh fursadda ma lumiyo haddii uu ka arko inaan halkaa dhashiika kaga soo dhacayn iyo boobo culusi kaga soo dhacayn wuu weheshanayaa mar allaaliya markaa uu kuu soo dhowaado ku hubinayaa alkhanaas alwaswaas alkhanaas mar allaaliya markaa dikriga ilaahay bilowdan oo ka cararaya sidaa darteed ayaa rasuulkeennu wuxuu inagula dardaarmay laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illah adigay dantaa tahay rasaas baa kugu socota ibliis oo aan seexanayn baa kula dagaalamaya adna inaad u hub samaysato haddii carabkaaga aad ku laylida dikriga ilaahay 40 maalmood ee ugu horeeya waa isla rafaadaysaa wixii intaa ka dambeeya waxaad arki doontaa adigoo aan dhaadayn carabkiiyo dikrigiiska wada haddaad carabkaaga ku laylida marka hore dikriga isagu marka dambe isagaa kaa kafaalo qaadayaba marka carabkiina ku layliya dikriga ilaahay subxaanahu watacaala haddii dikriga ilaahay carabkaaga uu u fududeeyana wallaahi baanu ibliis iyo shaydaan iyo jintoona kuu soo dhowaanayn intaasi waa talada guud ee qof kastoo muslimiba uu samayn karayo haddii la isa soo galo sixirka yimaado maxaan kula dagaalamaa waxaad kula dagaalamaysaa qur'aanka ilaahay fajaahid bihi jihaadan kabiira qur'aankaa kugu filan qur'aankaa kaafi kuu ah qur'aankaa shifaagaagu ku jira waxaana ilaahay kuugu ballan qaaday qur'aanka inaad ka helayso caafimaad oo ilaahay qur'aankiisa waa ka inoogu ballan qaaday yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatu lilmu'miniin waxaan qur'aankan idinku soo dejinnay in caafimaadkii qalbiga iyo caafimaadkii badankaba aad ka heshaan marka qur'aanka haddaad ku eerataan oo qur'aanka isku dawaysaan dawadiinnu way soo dhowaanaysaa marka sixirkii ama ishii ama jinkii ay kugu yimaadaan qur'aanka kariimka ah baa dariiqooyinka ugu sahlan ee aanad wadaad u baahnaanaynin oo aanad culimo u baahnaanaynin oo haddii alla yidhaahdo adig iyo ilaahay aad isla gaar noqonaysaan qur'aanka kariimka ay ku sirta qur'aanka ninka qur'aanka la noolaada u helayaa ambiyada ilaahay qaar baa ilaahay uu ku salliday shayaadiinta oo waxyeello u geystay sida nebiyullaahi ayuub jin baa dhibaato u geystay nebiyullaahi ayuub markuu jinku dhibaatada u geystay dariiqadii uu jinkaa kula dagaalamay ee ugu saxnayd buu maray dariiqada ugu fiican waxa weeye atadarucu ila allah inaad ilaahay isu dhiibto muxuu yidhi nebiyullaahi ayuub markii uu jinku ku dhuftay ee uu dhibaateeyey ilaahay baa qur'aankiisa kaga warramay isagoo ku ammaanaya
sida uu ula howlgalay uga dagaalgalay arrinta nebiyullaahi ayuub wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya shayطaanu binusbin wa cadaab dhibta uu gaadhsiiyey ilaahay buu uga cawday ilaahay buu u sheegtay markii uu ilaahay u sheegtay ilaahayna dawadii buu u sheegay subxaanahu wa tacaala urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab oo biyaha qabow oo lagu maydho marka ruuxa ili ku dhacdo ama uu jin asiibo ama sixirba uu qabto ma nebiyullaahi ayuub oo keliyay u tahay dawo may waa dawo muslim oo dhan ilaahay ku daweeyo marka waxay yidhaahdaan culimmadu biyaha qabow dadka cudurradaa qaba il iyo sixir iyo jin hadduu ruuxu qabo inuu ku dadaalo inuu biyaha qabow ku maydho waa dawo mujarab ah weeyaan oo qur-aanka kariimkaa sheegay laakiin cid walba markaa inay isticmaasho maahane waa in marka hore aanu ruuxani qabin xanuunno qabowga kullid ah maalan qofku hadduu asmo qabo kale ama romatism oo kale hadduu qabo ama ay dhaxani ku jirto waxaan kolba-aaryada aad tidhaahdaan oo kale kuwa yowga hadduu ka badbaado qabo dariiqa ugu sahlan ee lagula dagaalamo isha iyo jinka iyo sixirka waa biyaha qabow oo lagu maydho waxna laga cabo haddii biyo qabow aroorta hore aad ku maydhato oo duhurkii ku maydhato oo aad habeenkii ku maydhato biyo qabow way aad iyo aad bay ugu neef qabatoobaan shayaadiintu mana iska xajin karaan waxaa markaa suurtagala muddo yar haddii aad dawadaa waddo in aad ka guulaysato cadowgaa ku soo weeraray ee dhibaatada kugu haya waa masalo aada loo tajribeeyey biyaha qabow ku maydhashadooda ay daawo ka tahay masa shayطaan rabbi inii masaniya shayطaanu binusbin wa cadaab kharash badanna kuguma fadhido wadaadaad u tagtana uma baahnid marka inaad biyaha qabow aada laasimto inaad ku maydhato aad iyo aad bay kuu anfacaysaa ha laga warhayo haddii alla yidhaahdo waxaa kaloo uu nebigeennu inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alistirqaa'u biاlikhlaasi waalmucawidatayni inuu ruuxa muslimkii isku dabiibo oo uu isku aqriyo suuratu اlikhlaas iyo labada suuradood ee mucawidateynka la yidhaahdo waa xadiid saxiixa oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday muslim baana warinaya oo wuxuu nebigeennu yidhi alistirqaa'u biqul huwa allahu axad waalmucawidatayni labadaas lam yatacawad innaasu bimilihinna bini aadmi wuxuu ku dagaal galo ilaahay ku magan galo jin iyo iliya sixir oo ilaahay kaga magan galo oo saddexdaas suuradood uga sir badan oo uga baawar weyn ma jirto maalin maalmaha ka mid ah ayaa saxaabiyada ka mid ah ayaa nebiga xanuun uga soo cawday ama nebigeennuba calayhi salaatu wasalaam haddii uu xanuunsado ida shtakaa haddii uu xanuunsado wuxuu nebigeennu aqriyi jiray calaa nafsihi almucawidatayni intuu labada mucawidateynka ah u aqriyo ayuu wanafatha gacantiisa ku afuufi jiray candhuf yar markaasuu jidhkiisa ismarin jiray waa xadiid muttafaqun calayhi in labadaas suuradood ay dawo ka yihiin masaa'ilka ay ka hadlayaan nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam si dhaba buu isugu daweeyey markii ay yuhuuddu sixirtay labadaas suuradood ee mucawidateynka laydhaah waxaa kaloo dawaa suurat alfaatixa oo saxaabadii ninka gaalka ah kaga ajuurada qaatay markay nebiga ku soo noqdeen salawaatullaahi wasalaamu calayh nebigu wuxuu ku yidhi wamaa yudriika annahaa ruqya
oo inay faatixadu la isku dabiibo oo la isku daweeyo yaa ku baray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo iyana muhiima aayadaha qur'aanka kariimka meeshaa doontaba ka aqri, meelahay doonta qur'aankoo dhani horta waa dawo. in qur'aanka aada biyo ku akhrisato oo aada ku maydhato oo aada isku shubto ama aada cabto bidca maahan. oo ahar uu soo warinayo haddii alla yidhaahdo ibnulqayim uu soo warinayo wuxuu leeyahay aayadaha qur'aanka kariimka ah haddii aada isku aqrido ood biyo intaad ku akhrisato aada cabto salafkii ayay naga soo gaadheen ayuu leeyahay. waxaa kaloo muhiima oo salafka inaga soo gaadhay hadduu wuxuu sixir yahay in aayadahan soo socda aada biyo ku akhrisato oo aada waxna cabto waxna aada ku maydhato intii muddo ah aada ku waddo. aayadaha lagu aqriyayo biyaha kuwanaa ka mid a falamaa alqow qaala muusaa maa ji'tum bihi الsixr ina allaha sayubطiluh ina allaha laa yuslixu camala اlmufsidiin. waxaa kaloo ka mid a waqaca alxaqu wabaطla. waxaa kaloo ka mid a inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu الsaaxiru xayثu ataa. aayadaha aynu aqrinay haddii aada biyaha ku aqrisato oo aada cabto waxna ku maydhato manfac badan ayaa laga helaa oo haddii alla ka dhigo sixirka iyo jinka iyo waxaaba ilaahay uu kaaga daweynaya. marka inahaas waa inaha macnawiga ah ee qur'aanka kariimka asraarta ku jirta ayay ka mid tahay. waxaa in yar aan isdul taagi doona haddii alla yidhaahdo dhirta ama acshaabta wax ilaahay uu daawooyinka inoo u geliyey oo inoo soo dhex mariya caafimaadka ee lagula dagaalamo jinka iyo isha iyo sixirka ayaan wax yar isdul taagi doonaa. sideedaba sida xadiid saxiixa nabigeenna ka sugnaatay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh abaa hurayra warinayo wuxuu xadiidkaasi odhanayaa ina allaha lam yunzil daa'an ilaa anzala lahu shifaa. alle raxmatan lilcibaad cudur ma soo dejinin ilaa hadduu soo dejiyeyse shifaagiisina dhulkunbuu yaallaa. dhulkan aynu marayno unbuu yaallaa. calima man calim wa jahila man jahil. waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid muslim baa warinaya xadiidka likulli daa'in dawaa. cudur kastaa dawo lagu dabiiba baa taal. faidaa usiiba haddii dawadii la garto faidaa usiiba dawaau daa'i haddii dadku ay helaan dawadii cudurkaa dawadiisii hadday asiibaan buri'a biidni illaah waa lagu bogsanayaa idamka alleh. marka waxaan rabaa si yaroo si guud ah inaan in yar idiin bidhaamiyo dhowr geed oo mujarab ah oo xanuunada ama sixir ha noqoto ama il ha noqoto ama jin ha noqoto lagu tajribeeyey inay manfaco iyo faa'iido ka keeni karaan cudurkaas. waxaase iga digniin ah geedka aada isticmaalayso waa inaad garanayso wixii kaaga soo noqonaya madara. geed kasta oo arradan guudkeeda yaalla manfaco iyo madaruu leeyahay. haddaan si kale u idhaahdo manfacana wuu leeyahay haba kala yaraato ama ha ku kala badnaatee. marka waxaa muhiima qofka muslimkiihi markuu isku daweynaya dhirta inuu og yahay geedkan uu isku daweynaya dhib intee la-eg buu ku keeni karaa caafimaadkiisa kale. marka waxaa ka mid a dhirta aada iyo aadka ugu fiican xaaladdan in lagu dabiibo caleemaha geedka la yidhaah asidri bay yidhaha carabiga. caleenta gobka haddii intaad biyo ku darto waxna aada cabto waxna aada ku maydhato ilaa intuu sixirku kaa furmayo qur-aankana aada ku aqrido biyahaas ilaahay wuu kaa furayaa. wax dhibaato ahoo geedkaasi uu leeyahay jidhka bini aadmiga u leeyahayna ma jiro. waxaa kaloo jira geed ay yidhaahdaan cabcab maga innagu aynu u naqaano guryo fanna waa la yidhaahdaa guryoonna dad baa u yaqaana haddii alla yidhaahdo geeddhallaanna dad baa u yaqaana. waa la shiilaa saliiddiisaa la ismariyaa sidiisaa loo karsadaa siyaabo badan buu isna
dhibtiisu way yar tahay waxaa keliya oo ka mamnuuca bay yidhaahdaan dadka qanjirka thyroid galaanku uu xanuunayo ee cudurka goytarka la yidhaha qaba dadkaasu maan isticmaali karayn waxaa kaloo ka mida geedaha lagula dagaalamo bahashan xildiidda la yidhaahdo isticmaalkeeda laakiin taxadar badan inaad ka muujiso qadar badanna aanad isticmaalin baa muhiima waxaa kaloo ka mida geedaha ay aada iyo aada uga baxsadaan ama lagula dagaalamo geedka shadaabka la yidhaahdo sadaabna waa siinna waa loo qoraa shiinna waa loo qoraa waxaa isna ka mid ah timirta qofka sixirka ama isha ama jin dardariba uu hayo timirta aada iyo aada uma xiiseeyo aada iyo aada buu isooga ilaaliyaa laakiin waa inuu isku qasbaa haddaanu macaan lahayn ruux macaan lahunbaa timirta badsigeeda laga ilaaliyaa laakiin xanuun kale oo timirta laga qaado ma jirto waana geedka nebigeennu uu ku macneeyey inuu yahay geed shabaha mu'minka geed shabaha mu'minka dhammaan dul iyo hoos geedkaasi waa wada manaafic weeye timirtu waanay ku adag tahay qof il qaba ama sixir qaba inuu joogteeyo inuu aroortii 7 xabo cuno intaan waxba cunin 7 xabo inuu ku afuro waxaa kaloo ka mida geedaha lagula dagaalamo geedka bahalka la yidhaha miskiga waxaa kaloo ka mida geedka la yidhaha baabuunajka waxaa kaloo ka mida geedka la yidhaha cirqusuuska waa la cabaa laakiin ruux keliya xanuun qabana siin maysid axad macaan qabana siin maysid cirqusuuska labadaa cudur buu isagu ka reeban waxaa iyana la isticmaalaa geedka la yidhaahdo qustulhindi ama cuudalqistina waa la yidhaahdaa qustulbaxrina waa la yidhahda saddexdaa magacba wuu leeyahay muunadoodunbaa kala yaro duwan cabitaanna waa loo isticmaalaa iyo cunid maydhashana waa loo isticmaalaa shidashana waa loo isticmaalaa intaba wuu ku anfacaa waxaa kaloo ka mid ah geedkan bahalkan aynu cunee sabiibta la yidhaahdo sabiibta dhowr midh baad soo qaadanaysaa saliid yar baad ku shiilaysaa saliiddaa markaad ku sisho ayaad habeenkii markaad sii seexanayso aada marsanaysaa isticmaasho aada buu kuu anfacayaa waxaa kaloo ka mid a saliidda la yidhaahdo sayt allows almur innaga aada iyo aada waddankeenna uma taalo carabahaaba haysa waxaa kaloo ka mid ah saliidda la yidhaha sayt alqaranful geedkeennan aynu idhaa dhegayaraha saliid baa laga sameeyaa saliidda qaranful baa la yidhaahdaa saliidda waxaa la isticmaalayaa saliidda sinsinta ee aynu haysanno ayaa dabka la saarayaa dabadeedna saliiddii qaranfulkii baa lagu darayaa labadaas saliidood oo aada isku dartay baa habeenkii muddo la isticmaalayaa sida la tajribeeyey waxyaalaha isha iyo sixirka iyo jinkaba ilaahay uu ku daweeyo ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah geedka rumaanka la yidhaahdo qoloftiisa intoo la ridqo ayaa la hariyaa ama waa la radiyaa dabadeedna biyihiisa ayaa la cabbaa geedkaasi waxoogaa wuxuu leeyahay calool istaag buu leeyahay haddii aad aada u cabto markaa waad yaraysanaysaa haddii aad isticmaal istidhaahdo isna waa geedaha aada iyo aada loo isticmaali karo marka xanuunada lala dagaalamayo in yar waxaan isdul taagayaa haddii aan la yidhaahdo geedka rayxaanka la yidhaahdo alrayxaan waa geedkan masaajidada iyo lagu horbeeri jiray geedkaa laftiisa haddaad saliid ku shiisho dabadeedna aada dihaan ka dhigato habeenkii markaad sii seexanayso marka inta xanuunkaasi kaa ba-ayaba haddaad laasimto dawooyinkan wax dhiba ma leh qof baa waxaa laga yaabaa hal toddobaad inuu kaga baxo qof baa waxaa laga yaabaa inuu bil iyo dheeraad ku qaato qof baa waxaa laga yaabaa dadaalku gaaro waa kala duwan yihiin culayska xanuunka uu leeyahay oo taa waxaa idinka markhaatiya jasadka markaynu daweynayno xanuunada qaarkood 21 cishaa lagu qoraya antibiotiga xanuunada qaarkoodna sida TB-da 8 bilood baa lagu qoraya sidaasoo kale xanuunadana u kala qarawan yihiin ciddii marka aqoon lahaa dad kala tashato in yar waxaan isdul taagayaa si aydinaan ugu kadsoomin inaan wax yar kutub badan baa jirto sixirka laga qoray ama sixirka ay ka bartaan kuwa sixiroolayaashii
markaa si aa uga baraarugsanataan kutubta ama cidda haysata aad markiiba u fahamtaan inuu sixiroole yahay waxaan jeclahay inaan asmaa'da kutubtaa sixirka laga barto qaar ka mida weliba kuwa dalkeenna aada u yaallay wadaadadii hore qaarkood ay haysan jireen ama sixiroolayaashii maanta joogaaba ay isticmaalaan inaan wax yar idinka tilmaamo waxaa ka mida oo weliba number one-ka ah qoraalka ay yidhaahdaan shamsulmacaarifka kitaabka yidhaahdaan waa sixir meermeersan waxaa labeeya allu'lu'u walmarjaan fii taskhiiri muluuki iljaan magacyo aad qurux badan bay u bixiyaan allu'lu'u walmarjaan fii taskhiir muluuki iljaan waxaa ka mid ah sharxu lcahd alqadiim wuxuu sharxayaa ballankii qadiimka ah ee ibliiskii iyo bini aadmigii la shaqaysanaya ay wada galeen waxaa kaloo ka mida kutubta aad in badan maqli doontaan ama maqasheen manbacu usuulu lxikma waa kutubta sixirka adeegsata afartaa kitaaba hal nin keliyaa wada qoray waxaa la odhan jiray axmed binu cali albuni magacaa io xafid meel kaleu kuugu soo noqon doonaa buni afartaa kitaaba isagaa leh shamsulmacaarifka iyo saddexdaa kaleba waxaa jira kitaab lagu been abuurto imaam alghazaali imaam alghazaali ma laha imaam ghazaali kitaabka waa kitaab isna sixira oo la yidhaahdo alawfaaq baa la yidhaah maxaad ku caddaynaysaa in lagu been abuurtay imaam ghazaali kitaabka kan waxaan ku caddaynayaa imaam ghazaali iyo ninkan lagu yidhaahdo axmed binu cali albuni imaam ghazaali oo 15 sano sii mootan hadday faham imaam alghazaali oo 15 sano sii mootan ayaa waxaa dhashay ninkan buni la yidhaahay axmed binu cali albuni 15 sano ayuu ka horeeyey imaam ghazaali safxadda saddexaad ee kitaabka awfaaqa la yidhaaha loo nisbaynayo imaam alghazaali haddaad akhrido waxaad ku arkaysaa imaam ghazaali oo daliishanaya maqaal uu qoray buni may fahmaysaa kitaabkan awfaaqa ah waxay leeyihiin imaam ghazaali baa qoray imaam ghazaali wuxuu adilaysanayaa maqaalo uu leeyahay imaam buni ninkan imaam yaan odhan ninkan sixroole buni adigu waad fahmaysaa marka imaam ghazaali ma kitaabka ma qabriguu ku qoray oo kutubtii maxaa la yidhaahdo ninkan lagu yidhaahdo buni qabrigay ugu tegeen dabadeed markuu qabriga ku soo qoray markuu mu'alifka noqday buni oo kutubta qoray dabadeed buu imaam ghazaali isagoo qabriga ku jira intuu kitaabkii awfaaqa ahaa qoray miyuu dabadeedna ifka inoogu keenay hada macquul maaha safxadday ku taallaa beeni lug la qabtay leedahay marka imaam alghazaali kitaabka la yidhaha awfaaqa male isagaana isku markhaati furaya qoraalku kaasina wuu jiraa waxaa kaloo jira kutub ay aada u isticmaalaan sixiroolayaashii kitaabka waxaa la yidhaahdaa addayrabiy alkubraa wasuqraa laba dayrabi oo hal nin keliya wada leeyahay addayrabi in badan baa maqasheen iyo kutub kaloo aada u fara badan waxaa kaloon in yar baraarujinaya kitaab baa isna jira la yidhaahdo kitaabu araxma fi اطibi wاlxikma kitaabu araxma fi اطibi wاlxikma kitaabkaas waxay u nisbeeyaan imaam suyuuطi oo wada garanaysaan kitaabkaa waxaa ku jira haddaa gudihiisa aqridaana foolxumada ilaahay baa yaab ku keenaya in badan baan markaa isweydiinayey siday isu qaban kartaa hada alimaam aljaliil iyo waxaan ku yaalla buuggan la yidhaahdo alraxma fi اطibi wاlxikma baxhi dheer dabadeed waxaan ogaaday
kitaabkan in lagu been abuuranayo oo loogu suuq samaynayo inuu qoray imaam suyuuti waa been abuur loogu suuq samaynayo laakiin kitaabkani wuxuu ka mid yahay kutubta uu qoray nin yamani ah oo la odhan jiray mahdi binu ibraahim almuqri mahdi binu ibraahim almuqri baa kitaabka iyo qoraalka sixirka ah iskale haddii aada gudihiisa aragtana wax aada iyo aada ula yaabto oo dee diinka bax ah baa ku qoran waxaana loo nisbaynayaa imaam suyuuti marka waxaad ogaataa in laga faa'iidaysanayo sumcadda culimadii hormoodka u ahayd diin islaamka oo mararka qaarkood la inoogu soo hoos qaadayo kutub aana iyagu lahayn la leeyahay iyagaa leh si qofka aan dhaadaynin uu u qaato marbada hadduu imaam ghazaali waxaan qoray aqoontiisii diineed iyo maqaamku ka taagnay diintana aan garanayno inuu qofku si sahlan u qaato marka kutubo badan oo aada iyo aada u tiro badan ayay ka alifeen fannigan oo magacyo badan oo haddana wada aada isleedahay oo magacyo aada iyo aada u xiiso badan oo aada isleedahay manfacay leeyihiin iqaathatu lmadluum fii kashfi asraari alculuum mid la yidhaha baa jira iqaathatu lmadluum kii loogu hiilinayey ruux laga gardaran yahay ayuu u bixiyey mid kalena wuxuu u bixiyey aljawaahir allamaac fii istixdaar muluuki iljaan waan arkay kitaabka isagana waxaanaan ku arkay arkayso o dhan way yaallaan dalkeennan intooda badanna waan arkay marka kutubta noocaasana ha laga taxadiro culimmadeennu ma lahan in badanoo culimmadaana way ku been abuurtaan weliba kuway ku been abuurtaan waa culimmada ta'liifaadka badan leh culimmada ta'liifaadka badan leh baa lagu hoos qarin karaa bay yidhaahdaan marka way ku qariyaan wax iyagu leeyihiinna ma jiro cashirkeenna caawuna halkaa ay noogu joogo wabillahi tawfiiq barakaatu waa macshar alfalaki subxaana allahi haa waxaasoo dhan waa kutubta ugu daran ee haddii alla yidhaahdo ay isticmaalaan ya haa wuu jiraa isna waxaasoo dhan waa wada haysaa show qust lbaxri ama qust lhindi waa isku mid ama cuud alqisti waa geedha waxaan aan ku tirinay waa geedo ya شاء الله قبل اليوم هذا قيم يوسف الجليل ميزان في حساب سنة الله كبره بعد النبي والدين صلى الله عليه وسلم أنا لا يجوز ولا سنة